الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وبيال جود هانتين ملك الصوت شوكتا وبرامجكي كفتن كاسم نيوز وهذا هنقله هبين والبوج مع سوق لتطبات كيبها هذا هالمر كدعوتان برامجك كفتن كا وحنكسو قادنا بآلابة سؤال ضدك هذه شرح تشوكو نقطة oo ka qoslisa in badan gartaan in badan ay garan waayaan abaalmarin na lagu gudoonsiyo qaarkood iyadoo had iyo jeer ay iska kaashadaan barnaamijkan shirkadda Samtel iyo Sabnews haddaba caawa uu ka gadisan yahay habeenadii hore xubno kale ayaa la socda su'aal kaliya hadad ku ogeydeen balse dadweynihii su'aasha xujada aan weydiinay talo sidee uga jawaabeen nala daawo iyo su'aashii aan weydiinay sidee uga jawaabeen walaal magacaaga marka hore aad ku bilaabay bal waxaad noo sheegtaa shinidu imisa indhood bay leedahay magacaygu Cabdullaahi Yuusuf Cabdi shinidu waxay leedahay indho ma laha shinidu ma laha Samtel ma leedahay Samtel waan leeyahay bal lambarkaaga hal minute af Soomaali noogu sheeg oo waliba xagga dambe aad kaga imanayso lambarkaaga marka xagga dambe ka imaado 387 walaalo shinidu imisa indhood bay leedahay adigoo waliba magacaagana marka hore ku bilaabay magacaygu Cabdullaahi Ibraahim shinidu laba indhood bay leedahay waa si wanaagsan Samtel ma leedahay bal waxaad Samtel af Soomaali hal minute noogu sheeg adigoo waliba lambarkaaga xagga dambe aad kaga imanayso waxa weeyaan 881 xagga dambe عشان هذا ما قيمة و ستيدي تومن ستيتن صوتن 08 Sabnews فرشة عفوا أديات برما أيا نسر ويننا واد ما ستين وبرامج شاطئ بدن وحلا حلا كسي وضع والسلام عليكم ورحمة الله aad baad u mahadsantahay aad ugu aad baan kuugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ruuxda daawadayaal wali waxaan dhex mushaaxina barnaamijkii kaftanka walaalo magacaaga marka hore shinidu imisa indhood bay leedahay Mustafa walaal shinidu waxay leedahay laba indhood Samtel ma leedahay bal af Soomaali hal minute noogu sheeg adoo xagga dambe kaga imanaya waliba waxay leedahay 1 9 6 3 4 walaalo marka hore magacaaga waxa noo sheegtaa shinidu imisa indhood bay leedahay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Mustafa Maxamed Khaliif ugu horeyn soo shaqada isku day shinidu waxaan filayay inay laba indhood leedahay laba indhood bay leedahay هذا ما تتوت قرن ويدي Samtel ما استعماشها بل هل دقيقة نوقو شاق لمبركاغا oo waliba xagga dambaad kaga imanayso waxa weeyaan 799 0 hal 9 aad baad u mahadsan tahay insha Allah oo kula soo xiriireynaa walaal waxaan magacaaga adoo ku bilaabaya shinidu imisa indhood bay leedahay بسم الله الرحمن الرحيم شنو والله هل إلا كلية أي لذا بلادي Samtel ما استعماشها بل هل دقيقة نوقو شاق لمبركاغا في Soomaali xagga dambe هذا وشيء لمبركيga Samtel haddii aan ku sheego xagga dambana aan kaga imaado lambarkaygu wuxuu noqonayaa waxa weeyaan 2 5 6 minadka ka dhacay waqtigaad baad hadsantahay walaalo magacaaga adoo ku bilaabaya shinidu imisa indhood bay leedahay shinidu 5 indhood leedahay aad baad u mahadsan tahay Samtel ma istعماشhaa lambarkaaga bal xagga dambe hal minute nooga xagga dambe kaga kaada eber 9 واتاي داوديل ولي waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii kaftanka Sabnews ay iska kaashanayeen Samtel iyo waliba Sabnews walaalo marka hore magacaaga adoo ku bilaabay waxaan noo sheegtaa shinidu imisa indhood bay leedahay magacaygu markaan ku bilaabay waa Axmed Maxamed shinidu waxay leedahay laba indhood Samtel ma leedahay haa waan leeyahay af Soomaali bal noogu sheeg lambarkaaga hal minute adigoo xagga dambe kaga iman 9 8 eber 8 4 5 حسنت خارج
tahay daawadayaal weli waxaynu dhex mushaaxinaa barnaamijkii kaftanka Sab News habeen kasta oo Jumca soo galayo saacadu markay tahay 10 habeenimo ayaad ka daawan doontaan oo kala soconaysaan kaftanka iyo su'aalaha bulshada iyo waliba nala qosasha ku jira barnaamijka Samtel iyo waliba iska kaashadeen Sam News ee kaftanka walaalo magacaaga ku bilaabaya waxaad noo sheegtaa shinidu imisa indhood bay leedahay walaal magacaygu waa Mustafa Cali Nuur shinidu waxay leedahay taa laba beelad Samtel ma leedahay wallahi walaal Soomaali hal minid xagga dambe ka kaalay oo noo sheeg hal numbarkayga Soomaaliya waxa weeye waa 5 7 eber 5 eber 5 aad buu mahadsan yahay qofka ka qayb qaatay ee barnaamijka kulay way adagtay qofku marka lagu yiraahdo af Soomaali lambarkaaga ku sheego xagga dambe kaga kaalay magacaaga noo sheegaysaa su'aal baan jeclay inaan ku weydiiyo shinidu horta imisa indhood bay leedahay magacayga waxa la yiraahdaa Khadar Fuad shinidu walaal waxay leedahay laba indhood waad Samtel ma isticmaashaa lambarkaaga af Soomaali noogu sheegado xagga dambe kaga imanay lambarkayga haddaan af Soomaali kugu sheego waxa weeyaan 7 8 6 8 eber 9 eber 5 9 ka go'tay aad u mahadsan tahay waad ku raagtay qaybta Ingiriisiga si fiican ugu sheegi lahayd dil ugu weydii lahayd baad u mahadsan tahay haddaad ku guuleysan lahayd abaalmarin baan ku siin lahaa marka insha Allah kulay qof kale oo kula mid baa qaadan doona wali waxaan dhex mushaaxinaa barnaamijkii kaftanka Sam News ee iska kaashadeen Samtel ee abaalmarinta lagu siinayay qofkii isagu su'aasha garta walaal magacaaga marka hore noogu bilaabaysa bal waxaad noo sheegtaa shinidu imisa indhood bay leedahay shinidu laba bal Samtel ma isticmaashaa lambarkaaga af Soomaali noogu sheeg hal minid aad xagga dambe kaga iman waxa weeye 3 way ka go'tay 3 baad ku bilowday af Soomaali baa la doonayay 3 inaad tiraahdo ahayd aad u mahadsan tahay walaalo magacaaga ku bilaabaya waxaad noo sheegtaa shinidu imisa indhood bay leedahay shinidu laba indhood bay leedahay Samtel ma isticmaashaa bal lambarkaaga hal minid gudaheed noogu sheeg oo xagga dambe waliba aad kaga imanaysaa magacayga horta waa Cabdikariim Xuseen Ile lambarkayga Samtesha xagga dambe dan kaga imaado waxaan eber 7 3 4 2 eber 9 aad baad mahadsantahay abaalmarinta ku siina laakiin shinidaad garan weyday laba indhood bay leedahay baa tiri aad baad mahadsantahay kale qof kale baa qaadan doona magacaaga adoon ugu bilaabaya waxaad noo sheegtaa shinidu horta imisa indhood bay leedahay ma shinida laba indhood bay leedahay laba indhood waad si wanaagsan Samtel balaaf Soomaali lambarkaad sidato isticmaasho af Soomaali noogu sheego xagga dambe aad kaga imanaysaa xagga dambe waxaad nambarkaygu waxa weeye 9 6 maxaan idhaahday hal maya eber hal 4 baa ugu dambeeya waan ku siin lahaa walood la raagtay haddana laakiin shinidii baad garan weyday qof kale aan uga faa'iideyn doonaa mahadsan tahay shinidan anna ka warrama magacaaga noo sheeg shinidu imisa indhood bay leedahay aniga waxaa la yidhaha sirkaal cago waa ururkii Esrem maya shinidu imisa indhood bay leedahay laba indhood bay leedahay haa malabna way samaysaa Samtel ma isticmaashaa waa dawo malaa'ig baa ilaalisa hay Samtel ma isticmaashaa anigu ma garanayo aad baad u mahadsan tahay waxaad noo sheegtaa lambarkaaga marka hore magacaaga noogu bilaabaysaa shinidu imisa indhood bay leedahay shinidu waxay leedahay 3 indhood Samtel ma isticmaashaa bal lambarkaaga af Soomaali noogu sheegado xagga dambe kaga imanay xagga dambe mise xagga hore ka bilaab hooyo 9 eber 9 3 3 9 eber 9 waad mahadsan tahay waan ku siin abaalmarinta laakiin shinida waad ku dhaweysay laakiin waad garan weyday wali
daawadayaal waxaan dhex mushaaxinaa barnaamijkii kaftanka Sam News oo iska kaashanayeen Samtel abaalmarintan aan ku guddoonsiinaynay wali waan ku dhex jirnaa magacaaga walaado ku bilaabaya iyo waxaad noo sheegtaa Shinidu imse indhood baleed Shinidu waxa leedahay 4 indhood waa si wanaagsan lambarkaaga Samtel ma isticmaashaarto lambarkaaga xagga dambe kaga kaalaf Soomaali noogu sheeg eber 66 66 eber 6 oo inta waad maasanta haddaad in yar ku dar leed abaalmarintood ku guulaysan lahayd laakiin waa ka xumahay walaalo magacaaga ku bilaabaya Shinidu imse indhood baleed Shinidu waxa leedahay 2 indhood la Samtel ma isticmaashaa aad baad u mahadsantahay hadaba magacaaga ku bilaabaysa Shinidu imse indhood baleed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Mubarak Cali Abdi haddaan ka jawaabo su'aasha Shinidu waxay leedahay 6 indhood bay leedahay Samtel ma isticmaashaa walla markaaga af Soomaali xagga dambe kaga kala noogu sheeg afar eber hal 6 ma adsantahay inta u soo fikirayso waqtigu ka dhacay magacaaga noo sheeg Shinidu imse indhood السلام عليكم magacaygu waa Maxamed Aad Cilmi Shinidu waxay leedahay 2 indhood Samtel ma isticmaashaa walaal walla markaaga xagga dambe kaga kaalay hal minute waa eber waxay eber 4 1 3 2 eber 9 waad maasanta abaalmarintan ku siinaa laakiin Shinidaad garan weeday nasiibkaaga qof kale uga faa'iideyn doona magacaaga Shinidu imse indhood bay leedahay Shinidu indhaha ma la dareemayaal bay leedahay indhaha ma leh waa si wanaagsan Samtel ma isticmaashaa waa waxba laba lixaad 8 4 3 4 waa ka xumahay waa horta waad ku guulaysatay lambarka inaad sheegto laakiin Shinida aad sheegno tiro indhaha ma leh aad ma mahadsantahay waa markii uu horeysay gabadh soo garab istaagtay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka kala qayb qaadato walaa xaqan soo istaag adigoo magacaaga noo sheega Shinidu imse indhood baleed nimco 5 Samtel ma isticmaashaa waan isticmaalaa bal lambarkaaga xagga dambe kaga kala noofsan waxa weeyaan 7 6 8 eber 1 waxa jira hal laba maasanto ka guwatay waad ugu baa tiri marka aad wad mahadsantahay hal baa huwa tahay aan inta kaga soo gudbo su'aashaas iyadu laba su'aalood oo istaba socday oo dhinaca lambarka af Soomaaliga lagu sheegayay iyo sidoo kale su'aashii xujada ahayd dad badan ayaa isweydiinaya idinka laftarkiinu talo Shinidu imse indhood bay leedahay xagga dambeyn ku ogaan doona dadka ku guuleystay iyo sidee uga jawaabeen su'aashan si qadar nasasha iyo shirkadda Samtel waxaan ku wari halkaas ay runta horta mari halkaan markay leeyahay ayuu hagaan sub ina tiro soo hadashay halo hooyo salaam calaykum asalaam fiicantii hooyo waxaan ku wari saaka caruurtii he halo oo ku ay bismillaahir rahmaanir rahiim saaka caruurtii kala ku dhigay halo waa fadlan lacag shibabu kana ku shibabu hadaba maxaan yeelaa wataas caruurtii saakabay lacag shibabu weey oo hooyo yeed kaarka Samtel alla hooyo ma sito laa ilaaha illa allah kaarka Samtel $5 baad bisha dhaf hadlay kala go malaha fadlan lacag shibabu kuma baaranayo ma bisha dhan oo kala goray maxaan sameeyay hooyo hadda ana tacaawiyo kaarkayga Samtesha walaalo kala hada إيدي واد محطسته هوي إيدي هلو ما في عندي هات هوي حتى من غير قطع صاحب الموبل كيكا وهو تاكسيا هي يبقى السلايد الرجل كده بساسين وريقيا ادوك واد دوقيه ما موبل كان لميد هي ماي Samtel فوق شي حوارها سره سكونايو كاد مسيده Samtel leedahay وقت كان ساكره سو قاتay وانا استعمالي سرادها طبعا سراده يا سلام حوارة سنة يقصيصو شيء لك طبعا Samtel انترنت يا سلام صباح كست ساعة والبسيك الغورة يكسيك Samtel صباح كست ساعة والبسيك الغورة يكسيك Samtel صباح
kasta saacad walba sikin qura yay ku sheegin something wax kasta saacad walba sikin qura yay ku sheegin something waa tahay lagu wareer oo lagu dawaq shinidu imisa indhood ayay leedahay bal aan soo qaadana qayb ka mid ah dadkii iyagu abaalmarinta helay ee shirkadda Samtel ay guddoonsiisay iyaga waliba oo loo xushay inay su'aashii xujada haydna ka jawaabeen iyo sidoo kale lambarkooga in af Soomaali ku sheegeen way adagtay inta badan dadku in af Soomaali lambarkooga ay ku sheegaan hadii jeer luqadaha jaanibkeen ku sheegnaa bal aynu eegno qaybtii abaalmarinta heshay iyo sida uga mahad celiyeen waa magacaaga marka hore aad ku bilaabaya shinidu imisa indhood bay leedahay magacayga maxamed cabdilaahi baa la yiraahdaa shinidu 5 indhood bay leedahay Samtel ma leedahay wala af Soomaali hal minute waxa weeyaan waa 4 7 2 6 3 8 eber waa boqol wax orta isagoo qofkii ugu horeeyay ku guuleystay way xagga dambe kaga yimid wuuna Soomaali buu ku sheegay shinida laftarkeedana uu gartay aad baan ugu mahadnaqaynaa customerka ku guuleystay abaalmarinta waxaanu ku guuleystay xabad 4G oo internetka oo markaa ku isticmaali doono internetka aad buu u mahadsan yahay aad baad mahadsan tahay walaalo waxaad noo sheegtay adoo marka horena magacaaga ku bilaabaya shinidu imisa indhood bay leedahay magacaygu waa Cabdiraxmaan Cilmi Axmed haddaan su'aasha isku dayo shinidu waxay leedahay shinidu hal bay leedahay hal indhood waa si wanaag Samtel ma leedahay lambarkaaga af Soomaali baad noogu sheegaysaa waliba xagga ugu dambaysa ka bilaabaysaa waa eber 6 5 4 4 eber 9 9 3 hal waa boqol maasanta aad baad u mahadsan tahay abaalmarin buu qofkaas leeyahay maadaama marka hore uu sheegay lambarkiisa xagga dambena uu kaga yimid waa tahay daawadayaal qofkii hore ku guuleystay waxa uu helay 4G haatana waxay la jooga customer labaad oo isaguna ku guuleystay abaalmarintii labaad hal bil oo free ka waran aad iyo aad baan soo dhaweynayaa barnaamijkan Samtel ay maalgelinteeda leedahay wala magacaaga marka hore ku bilaabaya walaal magacaygu waa Cabdiqani Xuseen Cali shinidu waxay leedahay 5 Samtel ma isticmaal waan isticmaalaa lambarkaaga xagga dambe kaga kaalay 6 2 5 hal eber hal 9 waa boqol maasan tahay istaag waxa waa qofkii saddexaad ee ku guuleystay abaalmarinta kaarka ku shubashada waxaan ku wareejin doonaa qolada Samtel oo abaalmarinta guddoonsiin doonta waan u hambalyeynaa waxaan leenahay hambalyo wuxuu ku guuleystay in bisha looga dhigo free oo bisha uu ku hadlo wax lacag la'aan aad baa u mahadsan yahay waana soo dhaweynaynaa shukran waa tahay daawadayaal qofkii saddexaad ee ku guuleystay abaalmarintii aan ugu talagalnay ee Samtel inay guddoonsiiso dadka iyagu sita kaadharkooga macmiisha la'ah iyo waliba barnaamijkii kaftanka Sam News waa tahay qofkii daawadaha ay la socday barnaamijka kaftanka ee sidoo kalena ku guuleystay abaalmarinta Samtel ayaan jecelahay inaan ku wareejiyo dareenkiisa iyo Bismillahir Rahmaanir Rahiim wallahi horta aad baan u faraxsanahay waxaan u hambaleynayaa shirkadda Samtel intaas aan kaga soo gudbo wali waxaynu dhex mushaaxaynaa barnaamijkeenii kaftanka Sam News bal markan aynu eegno cid inaga sii qoslisa si aynu koobka shaahayna hor yaala aynu hore ugu dhamayno bal qolooyinkii majaajilaystayaasha qosolka iyo maada looga bartay aan idin qariye ila daawada qolada qosolka iyo maada looga bartay markaad idinku aragtaan ay idin qosli doontaan orkatoga kunalkaas soo dhig waxay dhalayna marba qof baa balsay dadku kala markay nagu yimaadana waa ka xarigu waa soo jiidanayna oo bilaa mid la carar waa laba carar ma yoor ka daba carayna dul carare maryaa bilaa nalaga qaataniyo waa raba la qaadan maayo soo oo ka daba yaacayna marka aad tagtid ku dheer hadalka maanta ka mutoka say lacag bahayn waar aduu ka bax intaas uu bilaado waryaa
war lacagta wala inaga cararaya war waxba la inaga carar maayo ka bax waa ka daba yaacayna hadii laga inaga dheereeya war niyo ninku manin waalan ba abal adigu aniga iida yarmina wariyahay wariyahay wala inaga cararaya dii war waxba la carar maayo iida hadii la inaga carar maxay tahay waa ka daba bacida inaga dheereys wariyahay war inooga daaban ku oran war ka baxade dadkeenu maanta hubsanaynaa waa dariiqi war dariiqna ma intaas ay loo jirtaa ka daba boodaynaabay dadka ma aragtaa lacagteena ma aragtaa dad bay muran ugu dhaxmaraysaa bal adigu arag yahay dadka inaga war naga tukordo war waa laga ruwaadsadaa adigu iska daaniyo oo maxaa laga ruwaadsadaa bilaa nin ilo daadu war yahay wax ma ku weleynaa baash war bal adigu aamus war niyow ninkana war miidhana war waay anigu de waa yaabanahay waxaad kala doontay lacagta meesha هل حوق وين بابا صوت البنو نقطع wadadkan hoos lama eega waryaa dadku sabaday ku farxuyn أريه أريه ورا محي واريا وابور أبدا برا خيره أريه ورا محيدي واريا ومحا وصل نقط سمح هذا ورا حابب شيء يسمع ورا حابب قصير والله ده وكل يومنا وكل يومنا لا لا ولا صدقني كوينا ما حتى هاي وايو واريا waxaad ka timi waa tahay sooraan iyo jawaan kulay la marka la arkaba qosol ayaa lala daataa kodokii kunbu ku xidhay dun waaba uu soo jiido xidhu dadkaynu eegaynaa dadkan waa dad cirka ku faruuriya xidhan daawadayaal aan ka soo gudbo sooraan iyo jawaan caawa maxaa kala qabsaday lacagtii ayaaba dun lagu xidho sooraan maxaa ku dhacay in lacagtiiba laga jiido sida wadaanka muxuu yidhi feedhyahanka caalamkan ahay waa tahay in badan ayaa sii qoslaysa aan dib ugu noqdo qaybihii kale iyo barnaamijkeena kaftanka iyo shirkadda Samtel waxaan ku wari halkaas ay runta horta mari halkaan markay leeyahay ayuu hagaan sug inanta leena soo hadashay halo hooyo hooyo salaamu calaykum asalaam fiicantii hooyo waxaan ku wari saaka caruurtii hee halo هلو أوه كوي بسم الله الرحمن الرحيم ساعة عروتي هلو هلو واقع فضلك لعبت الشباب كنا كل شباب ويدا طبعا محامي يلا وطاس عروتي ساعة بيت لعبت الشباب ويدا ها أوهوي ها يس ده كارت سمتين الله هو يمسكه لا إله إلا الله كارت سمتين ها $5 ها بعد بيش الدفع لي kala go malaha fadlan lacag shiba kuma baaranayo ma bishadan oo kala baray kala go mal maxaan sameeyay hooyo hadda ana taawiyo haye qaarkayga santeesha walaalo kala hada iidi hooyo iidi waad mahadsantahay hooyo iidi halo ma fiicantiin horta hooyo horta ma nabad qabtaa
صاحب الموبل كيغا waxa way taa ka fiican hay de marka isla internetka gal bishaasidu u wareegaya adigu waad iga dhuuqaye ma mobilka la mid ahay may somtel 4G xawaaraha sare soconayo kaad ma sidataa somtel leedahay waa kitaab saakada soo qaatay waanan isticmaalin siraadaha daba siraado ya salaam حوارة سنة يقصيسو شيء لك طبعا صوت الانترنت يا صوتي يا سلام صباح كست ساعة والبسيك الغوريك وساقي صوتين 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 waatay daawadeel waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka kaftanka Sam News haddaan idinka faa'iideeyo su'aashii shinidu imise indhood beelada qaar waxay yiraahdeen indha ma leh qaar waxay indha leedahay labay leedahay biirade qaar xabad biiradeen qaar afar qaar shan qolba sibay u turjumatay qolana waxay yiraahdeen maba lahabo dareen bay leedahay si idinka laftarkiina ayaa isweydiinaya shinidu imise indhood beeladahay shinida haddaan su'aasha idinka faa'iideeyo 5 indhood ayay leedahay daraasaadkii lagu sameeyay qolooyinkii iga aragtida dheera xagga xawayaanka iyo indhahooga ayaa iyagu ku soo qiimeeyay 5 indhood leedahay shinidu qaar badan waxay yiraahdeen indha ma laha dareen bay leedahay qaar waxayna hal il bay leedahay qaar laba il oo sida dadka ay u xisaabiyeen laakiin shinidu 5 indhood ayay leedahay barnaamijka waxaa qurxintiisa iyo habeentii isku dubaridka lahaa injineer maxamuud Saleebaan iyo sidoo kale Cabdilaahi Yare iyo Niciima dhammaantiin waa aniga xayaan naaleeya barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka dambe haddii Allah wada ogolaado waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah